بسم الله الرحمن الرحيم runtii waan siib daro sida hogaankii dalku uu u dhaqmayo waxaan moodaa hadda in labadooduba xayndaabkii dawladnimada la iskala baxay isqabqabsigoodu wuxuu dib ku yahay dawladnimadii wuxuu dib ku yahay socodsiintii hawl maalmeedkii dawladda doorashadii la filayay dalku inay gasho dhacdo oo dadka hadda dhan loo wada jeestay oo nidaamka dawliga ah oo hadda waxa lagu sii jeeday in doorasho dhacdo isbeddelna uu yimaado laakiin waxa moodaa arintani isqabqabsigoodu aad moodo in sabab looga dhigayo gabadhan la diray ilaahay u naxariisto Ibrahim Tahriir Faarax Ibrahim dabcan waa inay hesho cadaalad waa in laga gungaaraa hawshaasna loo daayaa cidda shaqada kule oo ah cadaaladda xeraaliyaha day tahay ciidan ahayd maxkamadda ciidamada iyo hawsheeda loo daayo marka waxaan moodaa gabadhii hadda in ay noqotay ka hadalkeeda iyo hawsheedu ay noqotay in la soo isticmaalayo oo qolaba aad moodo inay say doonto arrintan ay u isticmaalayso marka anigu waxaan u lahaa marka madaxweynaha hadii nabad sugidda oo saaxiibkii madaxda ka ahaa ayaa lagu tuhmayay gabadhan aniga waxa ila ahayd inuu completely arrintaas ka yani iska faraha kala baxo hay-adaha cadaaladda u daayo sababtoo ah waxay tirahdeen in xulaab xun inuu xaqarsanayaa la moodaa haddii gabadhan dilkeeda aysan shaqo ku lahayn waa inay iska fogeeyaan una dhaafaan cidda shaqo ku leh laakiin saad sheegtay isu jawaabidda la isaga jawaabayo rasaaruhuna ku jawaabayo mataqaana kana wax ku magacaabayo kana ku jawaabayo miidiyaha waxay ila tahay wax laga aad loogu qorxoon yahay waaya marka ra'iisul wasaare hadda madaxdii labadii xafiis madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyagoo ku kala jira dhismayaal isu muuqda haddana warqado isugu jawaabayaan in marka khilaafka iyo doodda arrintaa leegnay bannaanka sidaa ugu soo baxdo warqado la isu soo qoro midka kale kadib warqad uga daba maro maxay dowladnimadii Soomaaliya uga dhigan tahay maxay sawirahaysa ka bixinaysaa labada xafiis iyo madaxda wallahi dee waxay noqonaysaa labadooduba in ay arrintaasi ay dib ku keento mustaqbalkooda siyaasadeed labada sababta waxa weeye horta sidaadaba ha dhowto markii waxaanay qasmaan oo ay sii xumaato oo baraka meel gaarto saada ay ku sii socotaba la oran mayo hebel baa fiicnaa hebel baa sax ahaa labada qof dhowtay eedaysanayaal bay noqonayaan ra'iisul wasaaraha waxa marka anu kula tan la isaga in uu hadda maadaama awoodii u badneyd la siiyay dhanka doorashada in ra'iisul wasaaraha guushiisa iyo guuldarradiisa siyaasadeed waxay ku xiraanaysaa inuu doorasho sax qabto marka waxa oran lahaa gabadhan kiiskeeda sida hadda aan iriba loo daayay hay'adaha cadaaladda madaxweynuhuna faraha kala baxo ra'iisul wasaaruhuna ha u jeesto qabashada doorashada guushiisu iyo guuldarradiisu waxay ku xiran tahay doorasho sax ah oo lagu kalsoon yahay oo dadka Soomaaliyeed u wada yaqaan oo cadaalad ah in uu sameeyo guushiisu kuma xirra ka gungaaridda Ibrahim Tahriir guusha siyaasad kuma xirna laakiin Ibrahim Tahriir waa inay heshaa cadaalad haddana dee adduunka dhan baa ku soo jeeda Soomaaliya dhan baa ku soo jeeda kiiskeedu meel la'aan ma dhici doono laakiin waxaa loo baahan yahay marka inaan lagu mashquulin arrintan aan aad la isu raacine hay'adaha ku shaqada loo daayo isaguna soo u ekaanin inuu isticmaalayo uu kula dagaalamo farmaajo dadaaladii nabadda ee socday oo siyaasiyiin iyo odayaal qaarkood ay wadeen madaxda dowlad goboleedyadu ay ka mid yihiin sida muuqata hadda guul kama soo bixin hay'ad sharciyadeed oo kale oo arrinkan soo dhex geli karaysa oo xal u keeni karaysa ma ku muuqata dabcan hay'adda sharciga u lahaanad arrintan waxay ahayd maxkamaddii dastuuriga ahayd iyadiina ma jirto lama samayn hay'adda dastuuri ah oo dastuur ah lagu kala baxayo ma muuqato dastuur nin walbaaba isagu suudan u fasiranayo qodobku isagu isleeyahay waxay ku siinaysaa yani mataqaanaa iyo sabab mataqaanaa aad ku doodo ayaa nin walbaaba isticmaalaya oo ujeedaa nin walbaaba dastuurka qodobo ka mid soo daliishanaya marka hay'addii kala saareed maxkamadda dastuuriga ahayd iyadiina ma taalo marka waxa weeye waa in cid kale ay timaadaa oo nasteexaysa labadaba waxaa kaloo loo baahan yahay saacadan oo kale in uu yimaado barashar caalami ah sababta waxa weeye waddankan dad ayaa ku bixiya kharash aad u tiro badan balaayiin dollar baa lagu bixiyaa nabadgelyada anagu maanta mas'uul kama nihin amisom baa joogta oo ilaalinaysa xafiisadooda mataqaana Ugandis baa nin walbaaba ilaalinaya yani marka waxa uu baahan yahay barashar caalami inuu yimaado oo aad moodo hadda midka kaliya oo labadooduba ay ka baqi lahaayeen saaniga ila tahay